xaflad lagu sagootinayo madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeyd ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi warkaasina waxay noo hayay Cabdixakiin Siciid munaasabadani oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayne maamulka Khaatumo ayaa lagu sagootinayay mufti ka tirsan maamulka Khaatumo State oo muddooyinkii ugu dambeeyay hawlo shaqo u joogay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya munaasabada oo ahayd mid meeqaamkeedu sareeyay isla markaana si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa loo ka soo jeediyay xubno kamid ah guddiga jaaliyada Khaatumo State ee dalkani Kenya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee dalka Soomaaliya ugu horreyn waxaa hadalka qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo xidhiidhka federaalka ee maamulka Khaatumo Maxamuud Shabac waxaana uu ku dheeraaday hawlihii ay u joogeen magaalada Nairobi iyo sidoo kale midaynta maamulka Khaatumo State iyo Maakhir ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn marka waxaan doonayaa inaan galabta halkan ka cadeeyo oo aan uga sheego bulshada degan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn tashuushtii hore uga tashatay propagandii hore uga tashatay waxaan markaa sheegayaa waxa maanta haddii maamulka aan doonayno inuu la mataanoobaan gobolada dadka degan ee Sanaag ee la yiraahdo Warsangeli waxa maamulaya oo ka mas'uula waa maamulka Khaatumo sidoo kale munaasabada waxaa ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya guddiga jaaliyada Khaatumo State haween dhalinyaro waxgarad iyo aqoon-yahano waxaana ay dhammaantoodba ku dheeraadeen sida ay muhiimad weyn u leedahay in la iska rabtaago isla markaana si weyn loo taageero maamulka Khaatumo State waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa gabdhaha reer Khaatumo oo runtii lafdhabar u ah Khaatumo State of Soomaaliya Professor Cali Khaliif Galeyd madaxweynaha maamulka Khaatumo State oo gabagabadii munaasabada soo xidhay ayaa si qoto dheer uga warramay hawlihii ay u yimaadeen magaalada Nairobi iyo sidoo kale kulamo ay la qaateen safaarado caalami ah iyo xubno ka socda beesha caalamka oo dhammaantoodba ay kala hadleen sidii loo ballaarin lahaa maamulka Khaatumo State isla markaana ay guud ahaanba ugu midoobi lahaayeen beelaha ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waa soo dhaweynaya wixii Khaatumo iyo danaha Khaatumo iyo dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn dega wixii ama international community-ga ama wadankan aynu joogno ka soo gala guddidaas annaka nooga mas'uula guddidaas hawsha qaabilsan haddayan dadka Sanaag iyo Sool iyo Cayn ayan doonta ama markabka fuulin hadda hadhowto ma suurtoobayso hadhowna ma cataabi karno hadhowtana maxaynu meel aan gore ka hadaafay ma aynu cataabi karno waqti badan ma haysano bishan December iyo hadday ugu dambayso January yaa hawsha la rabaa inaynu gallo isku soo wada duubo munaasabadani sagootinta ee jaaliyada reer Khaatumo ay u sameeyeen wafdiga madaxweyne Cali Khaliif Galeyd ayaa ku soo dhamaatay jawi degan Cabdixakiin Siciid Maxamed telefishinka caalamiga ah ee Kalsan magaalada Nairobi